bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan daawadayaal halkan waa Soomaaliweyn TV qodobada barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah Fahad Yaasiin oo mar kale qarxiyay arrin halis ah iyo sirtii ka dambeysay dilka Ekraan Tahliil Faarax warbixino waaweyn ayaa ka soo yeeraya hanti dhowraha guud ee qaranka oo go'aan lama filaan ah qaatay warbixin ayaanu idinkaga helnaa saaxiibayaal Xasan Sheekh Maxamuud iyo heshiiska uu la gaaray Kenya waxa looga dhigan tahay sababta Itoobiya ay u diiday warbixino iyo xoga xasaasi ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa haddaba guusha Xasan Sheekh uu rajeynayo dagaalka la qorsheeyay iyo warbixino waaweyn ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena haddaba muuqaalkeena like sar oo share gareey sidoo kale janaalkeena subscribe leh si aad u hesho xogii ugu dambeeyay macluumaad dhab ah oo la xiriira xaaladda Soomaaliya aynu ku bilowno warbixino kala duwan ayaa ka soo baxaya heshiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la gaaray qaybo ka mid ah dalalka Geeska Afrika gaar ahaan dagaal uu hadda qorsheynayo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu bilaabay dagaal ka dhan ah dalalka Geeska Afrika kuwaas oo raba inuu la heshiiyo isla markaana aysan ku soo gamban maamul goboleedyada iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab haddaba su'aalo badan oo ay bulshadeynta iyo siyaasiyiinta isweydiinayaan ayaa jira kuwaas oo ku salaysan ma guuleysan doonaa qorshaha uu diyaariyay Xasan Sheekh Maxamuud muxuu yahay dagaalka hadda uu Xasan u diyaarsan yahay inuu galo xarakada Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida waxay Soomaaliya si rasmi ah uga dagaalamayaan in ku dhow ama in ka badan 15 sano iyagoo aqoonsaneen nidaamka dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka Al-Shabaab ay wadaan waxa ay soo saarayaan arrimo la xiriira deegaano iyo degmooyin ka tirsan iyadoo baaxadda dhulka Al-Shabaab ay maamulaan ay aad u adag tahay kooxda Al-Shabaab ayaa hadda maamusha 70% koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ay ku ballaarisay sanadihii dhawaa isla markaana dhul ballaaran ay ka qabsatay iyada oo ay saacideen khilaafaadka siyaasiga ah ee siyaasadeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya dhexdooda waxaa sidaasi qoray wargeyska Washington Post halka ay dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada xumaan ay dhammaantood u arkaan in ay Al-Shabaab maamulaan Soomaaliya waxaana ay xukumaan Muqdisho iyo caasimadaha dowlad goboleedyada Al-Shabaab iyo dagaalyahanadooda waxa lagu qiyaasay 5,000 ilaa iyo sidoo kale 7,000 oo askari oo ay dhammaantood maamulaan tuulooyin yar iyo baadiyaha miyiga ee deegaanada dowlad goboleedyada waxaan aragnay in ay ballaariyeen dhulka ay haystaan waxaa sidaasi tiri Samiire Gayd oo ah agaasimaha fulinta ee macadka daraasaadka amniga ee Hiraal oo la hadashay Washington Post waxaan aragnaa sidoo kale in ay sii noqonayso kuwa aan loodin karin oo awood yeelanaya kooxda Al-Shabaab ayaa laba laabtay weerarada ay ka fulisay Soomaaliya muddadii u dhaxaysay 2015 ilaa 2021 inta badan xilligaasi waxa dalka maamulayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii kooxdu la dagaalami lahaa waa doorbiday in uu xooggiisa isugu geeyo inuu la dagaalamo maamul goboleedyada dalka siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale sidii xukunka uu u dheereysan lahaa Al-Shabaab waa kooxda ugu weyn ee ugu hodansan uguna dilka badan kooxaha la xiran Al-Qaacida waxaana mas'uul ay ka tahay geerida kumanaan qof oo aanu iminka dembi geysan oo ay ku jiraan xubno muhiim ah waxaa sidaasi bishii Febraayo yiri General Stephen Towson oo ah madaxa taliska Africom ee Soomaaliya ee Mareykanka ku qaabilsan arrimo dhowr ah oo isbiirsaday ayaa xoojiyay kooxdan waxaa ka mid ah xasaradaha siyaasadeed ee Soomaaliya taageeradii ciidamada Mareykanka oo yaraatay ciidamada AMISOM oo ah wax matalayaal iyo dowladda Soomaaliya saaxiibadeeda oo aan lahayn istaraatiijiyad looga hortago kooxdan oo wax ku ool ah ayay tiri warbixinta ay soo saartay Washington Post ciidamada Soomaaliya ayaa ah kuwa wali aanu saameyn ballaaran lahayn isla markaana aanu sameyn wax horumar ah inkastoo oo sanado badan ay tababar siinayeen Mareykanka iyo dalal kale weerarada muqaawamada ee dhimashada leh Al-Shabaab ayaa sii socda iyada oo dhamaadka uusan muuqan doonin ayay tiri kooxda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group ee ICG loo yaqaano warbixin ay soo saartay bishii la soo dhaafay kooxda markasta tallaabo ayay ka horeysaa howlgallada militariga marka taasi lagu daro isku dhaxyaaca cadowgeena iyo sidoo kale xubnaha kale waxay ka dhigan tahay in ay ku milmeen bulshada Soomaaliyeed taasi way adkaanaysaa in laga sii adkaado Al-Shabaab ayay tiri hay'adda ICJ madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la doortay 2 bil ka hor ayaa ballan qaaday inuu kooxdan ka adkaan doono isagoo sheegay in dagaalo 3 jiho ah oo la geli doono Al-Shabaab hase yeeshee ballanqaadka waa mid la eegayo inuu fuli doono in kale iyada oo hore ballanqaadiyo ay u sameeyeen madaxdii ka horeysay isaga oo aysan waxba miradhal aysan ka muuqan ama xitaa aanu qaadin tallaabooyin hortabin leh oo looga hadlayo arrimahaas
waxa ay keentay durbaba in ay arrinkaasi ay isbiirsadaan oo ay isweydiiyaan dhinacyada, waana arrin kale oo dhibaato ku ah. sidoo kale magaalada muqdisho waxaa hadda ka taagan dhib weyn oo la xiriira xaalka iyo sidoo kale ciyaal weerada amniga iyo arrimo kale, iyada oo weli ay aad u adag tahay in laga hadlo dhacdooyinkaas iyo sidoo kale dhibaatooyinka oo aanu weli si rasmiya loo helin. haddii aan kasoo laabano wararka la xiriira magaalada muqdisho iyo dagaalamayaasha al-shabaab, weli waxaad daawanaysaan warkeenna. waxaanu markaan eegeynaa agaasimaha hay-adda duulista hawada Soomaaliya ayaa shaaciyay sida ay shalay shirkii diyaaradeed ee Juba Airways ay u dhacday kadib waraysi uu bixiyay. maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa ka hadlay shirkii diyaaradeed ee shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku burburtay diyaarad siday dad shacab ah, waxaana la soo warinayaa in wax khasaare aysan ka dhalan. maareeye Axmed ayaa sheegay inay si guul ugu dhamaatay badbaadada dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda oo tiradoodu ay dhammeed 36 qof kadib markii shilku ay ku gashay garoonka diyaaradaha. meeshu uu runway-ga ka bilaabanayay ayay ku dhacday markii ay deganaysay rakaabka, wax dhibaato ah ma uusan soo gaarin, wax shoog ahayn ama waxaanu shoog ahayn ma jirin. dadkii gurmadka degdega iyo ambalaasyada ayaa u gurmaday, ayuu yiri maareeyaha oo u warmay laanta af Soomaaliga ee VOA-da. meesha uu deganaanshaha kasoo bilaabmay ama uu degashada ay kasoo bilaabatay ee beeloodka ayaa ugu wacneed in ay rogmato diyaaradda. markii uu soo deganayay wax calaamad ah oo khatar muujinaya ma aysan jirin, waxaa la siiyay degashada diyuurad caadi ah isaga oo markaasi dhibaatooyin la kulmay. sidoo kale waxa uu sheegay in ciladan ay shilka ku gashay diyaaradda aysan ahayn mid hore loo sii ogaa, isaga oo xusay inay bilaabeen baaritaano ku aadan arrintan, isla markaana uu hadda garoonka si caadi ah u shaqeynayo. 1 saac iyo bar ayuu xirnaa garoonka diyaaradaha, iyada oo diyaaradihii badankood waa la leexiyay, waxaana loo leexiyay Baydhabo oo runway-geedu laami yahay. kuwii aan degi karinna waxa ay ku ahaadeen ama ku hayeen hawada. guud ahaan garoonka aad ayuu mashquul u yahay, dhaqdhaqaaqa maalinkii iyo garoonka waxa uu gaarayaa 150 ilaa 180 diyaaradood, halka habeenkii aysan sii badnayn oo hadda ay bilow tahay. sida aanu ogaanay, diyaaradda shilka gashay waxa ay u gareysneed shirkadda Juba Airways, waxa ayna ka diiwaangashan tahay dalka Kenya oo ah diyaaradaha Soomaaliya ka shaqeeya. diyaaraddan ayaa sumadeedu ay ahayd 5YJXN oo waxay duulimaadkeedii shalayto kasoo qaaday oo ay kasoo kacday magaalada Baydhabo oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyada oo cilad la kulantay wax yar ka hor inta aysan soo degin ama aysan ka soo degin garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, taas oo ay ka dhalatay dab xoogan oo markii dambe lagu guuleystay in la damiyo balse burburiyay diyaaradii oo dhan. dadkii oo dhan ayaa la badbaadiyay, wax culays ah oo kale ma aysan la kulmin. guud ahaan saaxiibayaal, halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamij wareedkeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doonno. nabadgelyo.